بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كسو دوادا مركله برنامجka taxanaha tubta toosan waa qayb kale oo aan daawadayaasha ugu talagalay in ay barnaamijkan ila daawadaan waxaan qaybtaan idinku soo gudbinayaa wareysi iyo warbixin aan ka diyaariyay Fartuun Maxamed Maxamuud oo kamid ah gabdhaha aragala ee u ololeeya xuquuqda iyo daryeelka dadka naafada ah Fartuun waxa ay ku nooshahay magaalada Muqdisho waxaana warbixintan aan idinku soo gudbin doonaa qaybtii koowaad ee wareysi iyo warbixin aan Fartuun ka diyaariyay waxaan rajeynayaa inaad ka heli doontaan muuqaal ka soo socda haduu ay baraali ka noqdo marka aad muuqaalkan ka heshid ila wadaag kadibna la wadaag asxaabtaada Fartuun Maxamed Maxamuud waxa ay kamid tahay gabdhaha aragala ee xubnaha ka ah golaha fulinta ee ururka indhooliyaasha Soomaaliyeed ee SAB waxay xubinta qiimaha badan ee araga ay weysay 12 sano ka hor kadib markii rasaas ay ka haleysay madaxa iyadoo ku sii jeeda goobteeda shaqo taasi ma aysan ka hor istaagin maareynta nolol maalmeedkeeda iyo doorkii ay ku lahayd bulshada waxayna dadaal badan ay ku bixisaa maareynta nolol maalmeedka iyo in ay wax la qaybsato bulshada caadiga ah Fartuun waxay xubin firfircoon ay ka tahay golaha fulinta ee ururka indhooliyaasha Soomaaliyeed ee SAB waxayna kamid tahay gabdhaha farakutiriska ah ee u ololeeya dadka naafada gaar ahaan dadka aragala aniga iyo xubno ka tirsan golaha fulinta ee ururka indhooliyaasha Soomaaliyeed ee SAB ayaa waxaan booqasho aan ku tagnay hoyga ay Fartuun ay kaga nooshahay magaalada Muqdisho waxaana iyada iyo qoyskeeda aynu kala kulannay soo dhaweyn diiran oo aan u riyaaqnay waxaan Fartuun daqiiqado aan sidaas u badneen kadib ay inoo keentay cabitaan qabow isbariidin kaftan iyo sheeko gaaban kadib waxay Fartuun sida caadiga ahayd ay u dhaqaaqday suuqa oo ku yaala meel 150 mitir qiyaastii u jira guriga ay ku nooshahay halkaas oo ay ka soo diyaarisay hadba wixii adeeg ah oo ay u baahneed iyadoo qofna aysan wehelinin ayay si nabad ah ay dib ugu soo noqotay guriga waxayna guda gashay diyaarinta qadada oo aan la cajiibay sida ay howlaheeda u maareynayso inta ay ku guda jirtay hawsha guriga ayaa Fartuun waxaan la yeeshay wareysigan oo aan ku weydiiyay dhowr su'aalood oo quseeya nolosheeda magacayga saddexan waxaan leeyahay Fartuun Maxamed Maxamuud waxaan ku dhashay magaalada Muqdisho qaasatan degmada Kaaraan ee ilaa hadda aan ku noolahay qaasatan waa tahay Fartuun gormee ayaad araga beeshay araga waxaan beelay 2004kii December maxaa u sabab ah inaad araga beeshid waxaa sabab u yahay in araga beelo anoo arday ah oo dhigto maadada caafimaadka oo ka qalin jabiyay markaas tababar ugu jiro istaal baraandiro markaas dib loo furay hooyadii dhalaanka ka degay ayaa waxaan maray wado oo jidcada ah oo aan rabay inaan mustaajo kale gaari ka sii raaco suuq bacaad markaas gaari agteeda marayay xabad lagu soo riday ayaa igu dhacday marka maalintaas ay ugu dambeysay dareemahayga araga markaad araga beeshay kadib saameyn cinkee ayay ku yeelatay noloshaada arag la'aanta xaqiiqadii mararka qaar waxaan isleeyahay in rajadayda ama hamigayga ah inuu qof macnaha arag la uu wax qabsan karo ama moorajab weyn aysan aanan kala kulmin arrintan runtii waxaan aaminsanahay inaanu moorajab weyn kala kulmin arrintan marka aan ku soo biiray bahda aragala waxaan dareemay inay tahay nolol si markii loo fiiriyo iska caadi ah si markii loo fiiriyana dadka mar walba ay muslima oo wax waliba qadarta Ilaahay inay yihiin mar walbana la filan karo in qofka aysan sida uu marka hore uu yahay si ahaan karin mar walba marka waxaan dareemaa rajo caadi nolol caadi ah waxaan dareemay xoogaa caafimaad darro oo xagga neerfaha maadaama madaxa aan dhaawac ka qabay intii ka dambeysay ii suurtagal baysay marka inaan sii wado waxbarashadeedii laakiin niyad ahaan ama hami ahaan waxaan ahay qof mar wala aaminsan in qofku wax baran karo ilaa maalintaas haddii aanan dareemin lahayn caafimaad darradaasna waxaan aaminsanahay ilaa heer jaamacadeed inaan gaari karay marka sidee hadda u maareysa howlaha guriga oo waxaan arkaynaa adigoo howlaha guriga si caadi ah u qabanaya katan guriga howlihiisa qofka marka uu yahay qof arag la wuu ku fikiraa wax waliba qofka nolosha caadiga ku jiro ee caadiga inta uu noloshiisa maareeyo jecel yahay isaguna inuu maareeyo
wuxuuna ku fikiraa inta uu qaban karo inuu isku dayo ilaa xad